anigu luqadda waxaan ku heestaa caruurta luqad gooni ay leeyihiin caday boono caanaha labeentooda ee dukaankaas ay gashaa haleenta shaahay soo qabataa waxyaabo badan waxaa jira oo caruurta le loogu talagalay dadku waaweyn haba dhahan muxuu ku heesayaa waxa uu ka heesay nolosha ka jirta guryaha Soomaalida iyo guud ahaan dareenka bulshadiisa labadan kun waa lindhanaan jikadan kula jooga iyo aniga cajiinka ka qasaya ayaa ka mid ah heesiisa jihadii fanka iyo muusiga Soomaalida u bedelay jiha kale haddaba waa kuma ninkan mucjisadii fanka ee qarniga noqday sharmaarka cabdinaasir maxamed oo caan ku ah naynaasta sharma boy sanadkan sii idlaanaya ee 2020 waxaa loo aqoonsaday xidigii fanka Soomaaliya fanka goormaad ku soo biirtay waa tuma heestii kuugu horeysay su'aalahaasi waraysi hore looga qaaday ayaa lagu weydiiyay fanaanka balse anigu waxaan ahay walaalkiis ka weyn ugu horeyna waxaan weydiiyay bal inuu ii sheego haddii uu wax ka xasuusto caruurnimadeennii adba ogta caruurnimadii iska fooda ahaa iska fooda waxaa jeclaa weerarada kaleeto loo faaqo meel weerar lagu dheelaayo waxaa waaye meel Afrigooley qorax kuleelka qada ayadan loogu yeeraayo anay adiga iyo atiima ahayn garoon badan oo maaragtay waxa jiro ku yaalo inkastoo anay ciyaal Madiina ahayn marka loo Muqdisho jiir maskiin waliba waxaa waaye garoomadii San Siro yaa ka mid ah Afrigooley xaafad dhexdeeda lagu ciyaarayo banooni laamiga dhexdiisa lagu ciyaarayo waxyaabo badan adiga iska jira ma fahamtay adduunkana waxa uu jeclaa maalinka dugsiga fasaxaya waxawaaye maalmaha oo aan ugu jeclaay ahayd oo igu farxad badda dugsiga fasax waaye markii la laho nina xataa ma soo jirin la qaybinayo marka nii hoob wakaas horta yaraanteen waxyaabahaas ka mid ah waxa ka xasuusto kulli adigu laftarkaaga ma aqaan meel kaaga dhuntay fanaana aan jirto markaa yareedo fanka adaaba iga jeclaa fahamtay oo loo fogaan jiray adiga ka bartay heesaa qada igu aqaan jiray waaga jecel inuu ka hayna ma aqaano hadda ayaamahan dambe waxa waaye kulli xilli waxaa jirta xataa ma aragtay saxafinimada aad u baranay saxafinimada ay ka hin jirtay ma aragtay oo hadda qofku meel ku fiicneen ma aragtay saxafinimadan dhib badan loo maray rabtaa horta waxyaabo badan oo rafaad badan in la soo baxo meel isugu imaado iska fadhiyo oo iska joogo cabaara waliga buuqa habeenkii la soo noqdo wixii ku caadisan yaraantiisii waxa uu ahaa nin aad u firfircoon kaftan badan oo dadka xaafaddu ay aad u yaqaaneen xitaa si aan aniga lii aqoon waxyaabaha la yaab kale ee nolosheena quseeya ayaa ah inuu yaraantiisii jeclaa isagu saxaafadda aniguna aan jeclaa fanka kulan waxaan wanaagsan asxaabteeda akhyaarteeda halkani aad naga daawanaysaan waa TV-ga qaranka Soomaali Channel hadee aniguna waa sharmaarka cabdinaasir maxamed sharma boy wariyihiini kulli dareemaysaaniyo waaragtay wixii markii aadan maaragtay aadan cashar umar ma fahamtay hoogaha wariyinimadan waxaa la lahay furnaanta maaragtay kulli qof aan aftaan wariye ma noqon karo waxyaabaha ay ninkan heesiisa dadku uga yaabeen ayaa ah inay taageerayaashiisa aad ugu badan yihiin caruurta ay da'doodu ka bilaabanaysa 5 jir ilaa 12 jirka maadaama aysan sida heesaha fanaaniinta kale ku adkeyn xifdintooda kulli aada soo noqdoniyo fanaaniintu way kala duwan yihiin fanaaniinta waxay ku heesaan maxaa la yiraahdaa kuwa waxay ku heesaan wacyigelin kuwa waxay ku heesaan mowduuc gaar ah ay uga hadlayaan oo soo talagaleen kuwa anta ku heeso kuwa jaceelka ka heeso ilmahan waxa shaqo kuma lahan waa ogtaa waa ilmo yar yar ah anigu luqadda waxaan ku heestaa caruurta luqad gooni ay leeyihiin caday boono caanaha labeentooda ee dukaankaas ay gashaa haleenta shaahay soo qabataa waxyaabo badan waxaa jira oo caruurta le loogu talagalay dadku waaweyn haba dhahan muxuu ku heesayaa laakiin caruurta laftirkooda maxaa la yiraahdaa luqaday leeyihiin
ayaga laftirkooda waxaa loo baahan yahay ilgaar inuu fiiriyo marka riyo marta farxad zaa'id ah waxaa ii ah maanta oo aan aad ugu faraxsanahay oo iiga duwan wareysyadii hore barnaamijyadii hore aan u qabtay waxyaabihii hore dee walaalkay ila dhashay aniga maxamed cabdinaasir maxamed Soofaysane ay wareysanayo walaalkaygu hooygu aabba ah way iiga duwan tahay kolley maanta waxaa la dhihi karaa kolley wareysi guud iyo wareysi gaar ahaaneed baa u fadhiyaa qaar badan oo hamigiisa hoos u dhigi jiray muddo aan dheerayn ayaa hadda u hambalyeynaya qof kasta oo ku dadaalay inuu ka midho dhaliyo hadafkiisa wuu gaaraa xitaa haddii ay dadka iyo jinkuba la dagaalamaan maxamuud Soofaysane TV-ga Somali Channel Muqdisho.